munaasabad ballaaran ee wakaalada biyaha magaalada Burco ku soo bandhigtay furitaanka mashruuca biyo ballaarinta gobolka Togdheer. Mashruucan oo iska kaashadeen wakaalada biyaha gobolka Togdheer iyo shirkadda Coca-Cola ayaa ka qabsoontay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen wasiirka wasaaradda kheyraadka biyaha Somaliland, mas'uuliyiinta wakaalada biyaha Burco, mas'uuliyiinta gobolka Togdheer, kuwa degmada Burco, taliyaasha ciidamada bilayska iyo abaanduulaha qaybta 12aad ee gobolkani Togdheer, gudoomiyaasha xaafadaha Koosar iyo Aadan Saleebaan, cuqaalo, odayaal, haween, aqoon-yahan iyo marti sharaf kale. Munaasabadan intii ay socotay waxa ugu horeyntiiba ka hadlay maareeyaha wakaalada biyaha Burco Ibraahim Yuusuf Diiriye Jirde, isagoo ku dheeraaday qaabka ay bulshada gobolka Togdheer uga faa'iideysteen mashruuca biyo ballaarinta gobolkani iyo waliba tacabka ay galiyeen sidii ay u gaarsiin lahaayeen mashruucani. waxaan ku soo maanta halkan kaga hadlaynaa waxa weeye mashruucii biyo ballaarinta ee Coca-Cola ee waqtiga dheer magaalada ka soconayay. mashruucaas bishii koobaad ee sanadkii tagay 9keedii magaalada ka bilaabmay. mashruuca waxa maalgelinayay oo maalgelintiisa lahayd kambaniga weyn ee Coca-Cola oo 500 kun ku bixiyay. wakaalada biyuhuna contribution ahaan 20% bay mashruuca qaybteeda ka bixisay lacag $100,000 ayay mashruucaas waa soo dhamaaday. meelihii uu tagay mashruucaas ayaan sira dul taagaya. marka hore saddex Facebook ah. Faceka koobaad wuxuu ka soo bilaabmay bariga magaalada meesha la yiraahdo xerta ayuu ka soo bilaabmay. waxaanu soo gaaray qaybta bilayska halkaas uu kaga xidmay magaalada waa 6 kilomitir. 4 kilomitirna IDB-yada ceelka Timoweynta ka xiga waqooyiga saddexda IDB Aadan Saleebaan la isku yiraahdo ayuu tago 4 kilomitir bahay. Facekii koobaad 10 kilomitir buu ahaa. Facekii labaadna 5 kilomitir buu ahaayo wuxuu ahaa galbeedka magaalada Xabaasha Maxamed Cali ee galbeedka magaalada ku taala 3 kilomitir halkaas ahayn labada ceel ee Boqleeyayaalna 2 kilomitir bay ahayd. Facekii labaadna halkaas ku dhamaa. Facekii ugu dambeeyay wuxuu ka soo bilaabmay ceelasha jaamacadda ilaa iyo xaafadda Koosar oo bisha 9keedii uu ku dhamaaday ilaa iyo xaafadda Cali Xuseen oo iskuulka afka loo saaray. halkaasuna 8 kilomitir bahayd waa 23 kilomitir oo 11 ka midina ay magaaladu ka faa'iideysatay 12 kilomitirna ay IDB-yadu ka faa'iideysteen. waxa iyaguna geestooda hadalka iska daba maray isla markaasina ka markhaati kacay waxqabadka mas'uuliyiinta wakaalada biyaha gobolka Togdheer muddadii ay xilka hayeen, juhdiga iyo dadaalka ay u galiyeen mashruuca biyo ballaarinta gobolka Togdheer iyo sida ay uga faa'iideysteen bulshada gobolkani. maalintii ay yimaadeen nimanka jooga meesha in biyo la'aan Burco ka jirtay. Burcana waa meesha Somaliland ugu biyo badan. waxa weeye waajibkeedii bay mariyeen, shaqadii bay qabteen, siday aad bay u qabteen. buuq iyo wax ka dhex jiray oo reeraa iyo balaa bay ka saareen. barigeeda iyo galbeedkeeda iyo waqooyigeeda iyo hawlkeeda ayay si transparency wax uga qabteen oo kaliya inay wax qabad ayaa maanta halkan ka muuqda ama laga sheegay. annaguna waxaanu qiraynaa wax qabadka inaanu markhaati ka nahay oo mid jira oo dhaba u yahay oo aan la qarin karin. ugu dambeyntiina waxaa munaasabadani soo afmeeray wasiirka kheyraadka biyaha Somaliland, gudoomiye ku-xigeenka gobolka iyo maayirka degmada Burco, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxa sharaf runtii ah inaan maanta soo furo mashruucii 7 bilood socday ee biyo ballaarinta ee halkan aad loogaga warramay oo dhammaan 23 kilomitir oo bayba oo ceelasha lagu xidhay oo la gaarsiiyey dadkii ugu danta yaraa. waxaan kaloo idiin sheegayaa reer Burco wakaalada biyaha halka jirta waxay hoos timaadaa dawladda maaha private. dalka waxaa ka jira meelo private laga dhigay inkastoo ra'yiga wasaaraddu ka duwan yahay. biyahoo kale waa wax muhiim ah, ganacsi lama gelin karo. way jiraan meelo la geliyey laakiin kama fiicna Burco. Burco aad uga fiican sida ay biyuhuna u gaareen shaqadeeduna u socoto. example bay noo tahay in ay Burco biyo gaareen waliba qiimo jaban ay dadku biyaha ku cabaan. mashruucan maanta aynu joognay Coca-Cola ay ka fuliyeen halkan waxaa ku tartamay si caalami ugu tartamay caasimadda mataqaana Rwanda, Kigali iyo Burco. waxaa ku soo guuleystay Burco oo ka guuleystay Kigali. teeda halkan balkan maalintii halkan ku daafurayna waa ogeydeen, maantana waa arkaysaan oo dowladda mashruuc lagu najaxay. waxa kale oo aynu soo marray maanta soo furay meelihii biyaha la gaarsiiyay IDB-yada oo ah Koosar, Aadan Saleebaan iyo Cali Xuseen oo mashruuc ballaaran ah oo Coca-Cola fuliyay. hawsha halkan ka jirta maanta waa biyo ballaarintii degmada Burco. in jeclaysanayay niman jeclaysanayba maanta markhaati uma baahna.
horena waan uga sheegnay golayaashii maxfalada la isugu yimaado labadan inay maanta meesha jooga wax u dhaama oo ka horeeyay iyo wax u dhaama oo rajaynayno ka dambeeya ilaahay baa ogay waan ku rajoonaynaa kuwii ugu wanaagsanayay gabagabadiina waxaa munaasabadani shahaado sharafyo lagu guddoonsiiyey cid kastoo ka qayb qaadatay hirgelinta mashruucan biyo ballaarinta gobolka Togdheer. Qaadan Maxmed, shabakada caalamiga Wadweyne News, magaalada Burco.